31 May 2021 waxaa dalka ka qabsoontay doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka. doorashadan ayaa qarashka ku baxaya 76% laga maalgeliyay cashuurta muwaadinka. doorashadan ayaa kor u qaaday hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. lacagta ku baxaysa imika inta ku baxday doorashadu waa 20 milyan waa kan sacad isaga dusha ka saaran tahay. caalamku wuxuu ku darsaday Yurubna 3 milyan iyo 2 Taiwan 5 naga soo galay. inta kale xilkeeda waxa qaaday wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda oo bixiyay